the tactics or the methods that Al-Shabaab and others use to recruit young people is they misquote the religion of Islam. But now we have a sheikh who knows the Quran and the Hadith and the entire religion inside out, for them to come out and say, no, you're wrong. dadkaas khaldan oo hadda diinta islaamka sidii khaldan u fasirahaya oo anu hadda culimo nahay runtii mustalahaadka ama terminolojiyada aad baa la isugu khilaafaa kana dhigahaya diin xataa dadkeedii baabi'inaysa. culummadu waa inay ka qayb qaadato oo wacyigelin waxaan inuusan diin ahayn in la khalday qofkan oo xag jirka ah hadduu Soomaali joogo iyo hadduu Ciraaq joogo Daesh ISIS ama uu joogo madashan ishaag Suuriya jabhatu nusra annaga kulli waa noo isugu mid al-Qaacida kulli way khaldan yihiin mar hadday khaldan yihiin in la aadana waa khalad alla min niman hadda diin matali kara inayna ahayn